sida warka caalamka baad ku maqlayseen shacabka wadanka Faransiiska ayaa maanta dooranaya madaxweyne cusub doorashadaas oo loo arko mid adag oo ay ku loolami doonaan madaxweyne Emmanuel Macron iyo hogaamiyaha xisbiga midigta fog ee haweeneyda la yiraahdo Marine Le Pen. Khadija Maxamed Jimcaale Qalanjo oo joogta Faransiiska ayaan wax ka weydiiyay doorashada maanta dhacaysa. كوثر إن دورشدن ودورشة لغو ترتمايو مدحوينها مستقبل كسنة كان لابد كوني لباتنكا وواحد عدا شنتي سنة ومر كترتمي لبي طبعا مشرح وحي كدعيسا قدهام دالك فرانسيسكا قبلادو كوبيني هاي وحانا كغيب قليا انتا استيقوان قليسي يولي بقى تضباطن كن او حفيز او كالترسن دمان بقودهان دالك فرانسيسكا طبعا tartankan aad buu adag yahay marka madaxweyne Macron iyo loolan adag kala kulmaya doorashadan maanta dhacaysa waa su'aal meesha ku jirta doorashadan maadaama isagu yahay madaxweynaha wadanka rasmiga ah inta doorashada madaxweynaha kala dooranayo wuxuu ku jira kaalinta koobaad kaalinta labaadna waxa ku jira musharaxa kala ayaa ku jira asagana oo la leeyahay waa labada musharax ee ugu horeeyay madaxweynaha ayaa musharaxa koobaad ah marka horey wuxuu ugu tirsanaan jiray Emmanuel Macron xisbiga Parti Socialistaha ama loo yaqaano bidixdii ayaa kala jabtay marka xisbi kale oo midigta ku dhow ayuu ku biiray waxa aad ugu sii siqaysa gabadha la yiraahdo Marine Le Pen oo kaalinta labaad ku jirta aad ugu dhow aad ayaa looga cabsi qabaa sanadkan inay soo baxdo hadii uu soo bixi waayo madaxweynaha Macron inkastoo ayadana ay bedeshay qorshayaasheedii xagjirnimada amba dadka nacaybka ajaanibta iyo ku adag wadaniyada oo xisbi hore aabaheed uu hogaaminayay muddo 40 sano ka hor waxyaabo badan ayay ka bedeshay xisbigaas tanasulaad badan ayay sameysay si doorasho laba mar hore ay ugu guuldareysatay marka imika waxa jira nin kale oo isagana in la xuso mudan balse aan la filaynin in uu soo bixi doono la yiraahdo Eric Zemmour booski wuxuu ku jira aabaheeda waxa loo xagliyay xagjir isagana aad u nacab ajaanibta markastana wuxuu ku baaqaa in uu tarxiili doono ajaanibta wadanka kuwa xabsiyada galay iyo kuwa sharci darada waxa la yiri waxa sare u kac ku yimid qiimaha maciishada ee dalka Faransiiska waxa sidoo kale la sheegay inay caqabad ka jirto heerka shaqo la'aanta marka arimahaas oo dhan wax ma u dhimi karaan dib u soo doorashada madaxweyne Macron way jirtaa Macron wuxuu qarka u saarmay labadii sano ugu dambeysay baxyo hareereeyay dalka Faransiiska taasoo looga soo horjeeday waxyaabo hore uu ballan qaaday oo fuli waayay iyo waxa isku soo aaday xanuunkan COVID-19 iyadoo halistaasi uu ku jiray barnaamijyada isdaba jooga ah wadanka hareereeyeen waxa uu kaga badbaaday xayiraadii COVID-19 marka dadku waxay leeyihiin sababihii aan u dooranay isbedel weyn ayaa ku dhacay waxyaabo badan u baahnaayeen dadka dhaqaalihii oo sare u kacay haddana waxa jirta arimaha Ukraine sidaad ogtihiin saameyn weyn dhaqaalihii aad maciishada wadanka aad sare u kacday waxa jira musharaxiin badan oo asaga ka soo horjeeda oo leh waan ka bedeli doonaa waxyaabaha qorshaha Emmanuel Macron sida qorshaha shaqada iyo shaqaalaha iyo canshuur dhimista 20% waxa jirta gabar ayada aad ugu tartamayso oo dhanka Parti Socialista gabadha kaliya u tartamaysa haysata duqa magaalada Paris oo ayadana si aad laga yaabo inay soo baxdo 12 kaasi musharax wareega koobaad ee maanta ka dhacay dalka Faransiiska marka si guud maxaa laga filayaa doorashadan madaxtinimo ee dalka ka dhacayso maanta waxaa la filayaa labadan musharax madaxweynaha iyo gabadha Marine Le Pen dhanka wadaniyiinta amba Front National oo la leeyahay oo xisbi kale hadda isku rogay in ay ku soo baxaan labadaas saadaalinta bulshada ay sameeyeen sida la saadaaliyay labadaas ayaa ku horeyn doona ayaa laakiin waa doorasho lama ogaan karo wax kasta dhici kara marka caawa 8 ayaa la filayaa inay soo gabagabowdo wareegga hore doorashada taasi waxay ahayd Khadija Maxamed Jimcaale Khadija Qalanjo oo joogta Faransiiska oo aan wax ka weydiiyay doorashada maanta ka dhacayso dalkaasi wixii natiijo ah doorashadaasi ka soo baxana waxa aad ku maqli doontaan idaacadaheena dambe iyo dabcan waxaad kaga bogan doontaan bogga aan internetka ku leenahay ee bbcsomali.com